halkan waa Som Canada TV wararka caawan idin heynana waxa ugu waaweyn sharax xildhibaan oo kursi loo xiray oo weerar lagu qaaday qasaare xooggan oo ka dhashay ayaa u fuliyay Fahad Yaasiin jariimooyinka niisa ay ka wada godka Jilcow baarlamaanka 11aad oo lagu tilmaamay inuu noqon karo midkii ugu argagaxa badnaa wadan si kulul ugu carooday in lagu daro liis ay ku jirto Soomaaliya iyo guddi uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble oo digniin soo saaray daawadayaal intaas waxay ahayn qodobadan caawid inayna kuwada ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo faahfaahsan wararka soo gaaray magaalada Garowe ee caasimada dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubeysan ay weerar ku qaadeen musharax xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya musharax xildhibaan Faarax Nuur Maxamed Dheere oo u taagan kursiga tirsigiisa yahay Hoob 192 ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray weerarka maanta lagu qaaday sidoo kale rasaas dableed hubeysan ay ku fureen musharaxa ayaa waxa ku dhaawacmay laba kamid ah askarta ilaalinaysay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah weerarka lagu qaaday Maxamed Dheere ayaa salka ku haya khilaaf xooggan oo ka taagan kursiga xildhibaan ee uu isu soo taagay kaasoo madaxweyne Dani la sheegay inuu u xiray guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa maanta musharax xildhibaan Maxamed Dheere siiyay shahaadada musharaxnimadiisa iyadoo la sii adkeeyay amniga musharaxa hore uga mid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada Puntland kursiga Hoob 192 oo isu soo taagay Maxamed Dheere ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta birita ah ay doorashadiisa ka qabsanto magaalada Garowe kaasoo dab ku sii shiday xiisada ka taagan kursigaasi maadaama uu ka hor yimaadeen jufooyinka iskale kursigaasi wararka ayaa waxaa intaas ku dariyeen in xiisada ka dhalatay loolanka kursigaasi ay ku baxeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Garowe si loo qaboojiyo aysan u dhicin weerar kale jariimooyin waaweyn ayaa laga geystaa godka Jilcow haddaba yaa u fuliya Fahad Yaasiin jariimooyinkaasi xabsiga godka Jilcow oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la xiray December 18 sanadkii 2018 ayaa weli furan waxaana dadka ku ciqaabay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sida uu shaaciyay mid ka mid ah dhibanayaasha halkaas lagu soo dhibaateeyay wasiirka amniga iyo cadaaladda xilligaasi Islow iyo Xasan Xuseen ayaa carabka ku adkeeyay in jeerkan loo bedeli doono tababar saraakiisha ciidamada sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Nuur Nasri oo horey uga mid ahaa Jubbaland bilooyin ka mid ah 2019 ku qaatay jeelkaasi Jilcow ayaa ku sifeeyay meel niisa ay ku gumaado shakhsiyaadka ay dambiyada culus ka galaa sida laga soo xigtay Nasri oo u waramay warbaahinta Hanolaato xafiiska hay'adda Nisa ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa isaga ka qabtay mar uu ku sii jeeday magaalada Nairobi maalintii koowaad waxaa la xiray 4 barqanimo waxaa la yimid 2 fiidnimo sida xabsiga gaalada oo kale qof maxbuus ah looma ogolo inuu salaad dukado malaha waxaan isiri salaad ma dukadaan ayuu yiri Nasri ayaa loo beegsaday fulinta qorshe Fahad Yaasiin oo ka damacsanaa inuu magaalada Kismaayo kooxo Maleeshiya uga abaabulo Cabdullaahi Dheere oo gacanta midig ee Fahad Yaasiin agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka haddana ah la taliyaha amniga qaranka ayaa isku xiray Fahad iyo Nasri kaasoo la siiyay $230,000 oo doolarka Mareykanka runtii muddadii aan ku jiray godka Jilcow waxaan noqday 37 kiilo culays ahaan katiinada laygu xiray darteed waxaa dhibaato iga soo gaartay neerfaha dhowr jeer oo xabsiga ku mirbeelay ma helin daryeel caafimaad markii la soo daayay ayaan isku soo daaweeyay dalka Hindiya oo dhaawac culus uu iga soo gaaray lugaha ayuu yiri Nasri Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dhibanahaasi 2 jeer kula kulmay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Habar Khadiijo wuxuuna inta badan kala hadlayay sidii uu ula shaqeyn lahaa afhayeenkii hore dowlad goboleedka Jubbaland Carab oo uu eedeeyay Nasri ayaa Nasri ku tilmaamay inuu ahaa nin doonayay inuu dilo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu sheegayna aysan ahayn wax ka jira macada rasmi ahaanshaha dhibanaha dhibka uu ka sheeganayo godka Jilcow waxaa sidaas oo kale Nisa lagu eedeeyaa inay dad badan ku dhibaateyso xarunta godka Jilcow baarlamaanka 11aad ee soo socda ayaa laga cabsi qabaa inuu noqdo baarlamaankii ugu argagaxa badnaa xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii 10aad ee waqtigiisa dhamaaday oo dhawaan laga reebay tartanka kursiga laga soo doortay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka deeriyay hanaanka ay socoto doorashada Soomaaliya ee wax laga dhaxli karo waxa uu sheegay in dalkan uu khatar ugu jiro inay soo baxaan xildhibaano al-shabaab ah waxaan ka cabsi qabaa baarlamaanka 11aad inuu noqdo mid laga argagaxo waxaan la yaabay dalka hadda sida uu ku socdo ayuu yiri Idris Dhakhtar ayaa sheegay in xukuumadda loo xilsaaray doorashada howlo kale ay ku mashquulsan tahay waxa uu sheegay ragga taageero farmaajo ay ku jeesjeeseen markii laga reebay kursiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qaarkood waxa uu sheegay raggii ku jeesjeesay in loo diiday kuraasta baarlamaanka raggii kuraasta loo soo diiday waxay ugu eedeynayeen inaan ahay mucaarad waxay u yiraahdeen 20 sano ayaa kursiga ku fadhinay nin kasta oo xukunka yimaadana muxaafid ayaan u ahayn farmaajo ayay soo saarteen Facebook-yadooda haddana waxaa laga reebay tartanka wadankan wuxuu ku socdaa meel qaab daran ayuu sii raaciyay xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar ayaa walaac ka muujiyay qorshaha cusub ee Daacish ay baada uga qaadayso ganacsatada suuqa Bakaaraha kaasoo dowladda Soomaaliya aysan waxba ka qabanin
waxaa ugu maqaalaa in deegaan ka tirsan muqdisho ay al-shabaab dacwad ugu tagaan dadka muqdisho. dowladdii sheeganaysa inay amniga shaqo ku leedahayna war kama hayso, ayuu hadalkiisa kusii daray Idris Dhakhtar. abaaraha dalka ka jira iyo lacagaha tirada badan ee la isku dooranaya ayuu sheegay in xukuumadda Rooble ay iska indhatirayso, isagoo dhaliilay safarada badan ee dibadda. qaladaadka dhacaya mas-uuliyaddeeda Rooble ayaa iska leh. mar Kenya ayuu aadayaa, mar Qatar, marna Imaaraadka. kama warqabo wax dalka ka socda. aniga hadda xukuumadda Rooble $11,000 ayaan ka rabaa. qasnada ayaa ugu shubay inaan kursiga beesheeda u tartamo, waa liiga hor istaagay, ayuu yidhi xildhibaan hore Idris Cabdi Dhakhtar. lacagta waxaan kusoo shubay bangiga dhexe. mas-uuliyiinta doorashadana waxay saaran tahay Rooble, kama hari doono lacagteedii. maxkamad ayaa la kori doonaa. haddii maanta awood ay leeyihiin, maalin aysan awood lahayn ayaa la gaari doonaa, ayuu yidhi Idris Cabdi Dhakhtar. Puntlandna waxay xukuno kala duwan ku fulisay 6 qof oo dhalinyaro ah. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwad ka dhan ah 6 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inay ahaayeen shabakad ka tirsan al-shabaab oo dilal qorshaysan iyo qaraxyo ka fulin jiray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. maxkamadda ayaa 4 ka mid ah dhalinyarada ku xukuntay dil toogasho, halka 2 kale lagu kala xukumay xabsi gaaraya 20 ilaa 30 sano. 4 dhalinyarada ee dilka lagu xukumay ayaa kala ah Farxaan Faysal Salaad, Cabdullaahi Faysal Xuseen, Barkad Cawil Xirsi iyo Liibaan Aadan Muuse. sidoo kale Cabdiqani Faarax Cabdullaahi ayaa waxaa maxkamadda ay ku xukuntay 30 sano oo xarig ah, halka Cabdiraxmaan Cawil Maxamed isna lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. dhalinyaradan ayaa waxaa dhammaantood lagu eedeeyay inay Gaalkacyo ka howlgelayeen intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2021, isla markaana ay geysteen qaraxyo iyo dilal qorshaysan. maxkamadda ayaa intaasi waxay ku dartay in dhalinyaradan ay haystaan 30 cisho oo ay racfaan ku qaadan karaan si ay u qabsadaan qareenno u dooda oo ka difaaca dambiyada ay ku mutaysteen xukunka adag ee haatan lagu riday. Puntland ayaa horey xukun dila ugu riday rag ay ku eedeysay inay shabaab yihiin oo 18 ruux gaaraya bartamihii sanadkii 2011 oo lagu toogtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. guddi hore uu magacaabay ra'iisul wasaare Rooble oo digniin ka soo saaray boobka doorashada. guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee hore uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay doorashada golaha shacabka ee socota, iyagoo digniin culus soo saaray. Marwa Caashi Siyaad oo kamid ah xubnaha guddigaasi ayaa sheegtay inay ka digayaan in la boobo kuraasta loo qorsheeyay haweenka ee baarlamaanka kadib wareysi ay siisay TV-ga Universal. Caashi Siyaad waxay soo jeedisay in qabaa'ilada aan laga qabanin liis aysan ku jirin qoondada haweenka ee 30%. cabasho way jirtaa, waana kasii digaynaa. waxaan kasii dardaarmaynaa gabdhaha kuraastooda in la ilaaliyo. qabiilka gabdhaha laga rabo waa inaan laga qabanin liis aysan gabdho ku jirin, ayay tiri Caashi Siyaad oo kamid ah guddiga xaqiijinta qoondada haweenka. sidoo kale waxaa intaas ku dartay in dacwad culus ay ka gudbin doonaan kuraasta gabdhaha haddii la boobo. annaga dacwo ayaan ka gudbinaynaa haddii ay dhacdo in kursi gabar loo qoondeeyey ay rag kusoo fadhiistaan, ayay hadalkiisii raacisay. ugu dambeyn, Marwa Caashi Siyaad ayaa fariin u dirtay madaxda dowlad goboleedyada, waxayna ugu baaqday inay ka shaqeeyaan hufnaanta doorashada iyo ilaalinta qoondada haweenka. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli waxba ay iska bedeleen hanaanka doorashada kadib shirkii Muqdisho ee golaha wadatashiga qaran ku yeesheen, waxaana weli socda boobka doorashada iyadoo kuraasta qaarkood loo xiray shakhsiyaad qaar, taasoo oo baalmarsan heshiiska doorashada. waddanka carooday in magaciisa lagu daro liis Soomaaliya ay ku jirtay. dowladda Colombia ayaa ka carootay in waddankeeda lagu daro liiska warbixinta qaramada midoobay ee 20 dal ka jirto baahida daran, sida ay tabisay wakaalada wararka ee AP. war ka soo baxay xukuumadda Bogota ayaa lagu dalbaday in Colombia laga saaro liiska wadamada lagu tilmaamay inay halis ugu jiraan raashin la-aan. wasiirka arrimaha dibadda Colombia ayaa xafiiska hay'adda FAO ee magaalada Roma u gudbisay go-aan ku saabsan sida ay uga soo horjeedaan warbixintaasi, sida ay ku warameen warbaahinta dalkaasi. warbixinta carada dhalisay ayaa waxaa isbuucii lasoo dhaafay si wadajira u shaaciyey hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan cuntada, beeraha iyo caafimaadka adduunka. waxaa lagu sheegay in dad gaaraya tiradooda 7.3 milyan oo reer Colombia ay haystaan dhibaatooyin cunto la-aan ah, ayna u baahan yihiin raashin lagu caawiyo sanadkan 2022. wadamada kale ee liiska ka muuqda waxaa ka mid ah Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Itoobiya, Madagaskar iyo Yemen. warkii oo caawa aad kala socoteen Som Canada TV-na daawadayaal waa naga intaas.